marka laga hadlayo erayga xigmad waa dhulashada erayo iyo odhaahyo mid ah oo soo maxdimaan culan isla markaana uu taxay garashadiisa waaye aragnimo aqoon iyo karti hufan xigmaddu waa iftiin ku jira qalbiga iyo maskaxda aadanaha waa wadda qofka ka caawisa inuu aragti dheer yeesho u fahmo waxa nolosha muhiimka ah u kala saaro waxa mudan iyo waxa aan mudnayn xigmaddu maaha keliya aqoon bug laga barto waa waaye aragnimo la dareemay qalbi furan iyo fikir ka baxsan rabitaanka shakhsiyeed marka qof xigmad leeyahay wuxuu fahmaa dhibaatooyinka dadka kale oo samir iyo dulqaad ku wajaha wuxuu aqoonsadaa khaladaadkiisa oo ka baaraantiga wuxuu qaataa go'aano nolosha u fiican iyadoo aan keliya damac iyo shucuur lagu hagin si kale haddii aanu dhigno xigmaddu waa qalbi furan oo aragti dheer leh oo dadka iyo nolosha ka dhiga kuwa la fahmi karo la qadariyo oo xasilooni ku dhex noolaada iyadoo oo taas laga duulayo ayaanu ka baxsal gadh ahaan sii wadi doonaa barnaamijkeennii 60 xigmadood oo aan qaybihii hore kaga soo hadalnay mid 60 xigmadood innaga oo muuqaalkana ku soo qaadan doona 60 kale oo fiican aanan u guda galno haddii aad indhala'dahay ulha ku qaadan dhulka maxaa yeelay mas baa laga yaabaa inuu yahay laba maalin uun ilaahay waad naxariisan doontaa maalin uun ilaahay waad weydiisan doontaa naxariis maanta u naxariisa dadka masaakiinta ah adigoo aan gelay beeren waxa aad doonaysaa inaad gelay goosato shabeelka dhash ah hooyadii uun baa qaadi kartaa dhallaanku beerka waa ku qaali ilka wada jir bay wax ku gooyaan walaalo isnacay waxa baa la badiyaan kuwa isjeclaadayna way xoolo badiyaan qofka tarbiyada wanaagsan hal gacan buu wax ku qaadaa halka kan kalena isagoo u baahnayn qofka gacmihiisa waa sida waalidkii waayo way quudiyaan hala dagaalin libaax haddii aanad libaax ahayn hadoonin gabadh aadan qoyskooda garanayn waan garanayaa waxa aan jecelnahay laakiinse ma naqaano waxa ina jecel maska waxa aad la kulantaa marka aadan faralaab haysan aboorka yari waxa uu cuni karaa geed weyn marka aadna cidna hayasin sida ugu fiican ee sirta loo ilaalin karo waa iyadoo aan cidna loo sheegin hadal af dhaafay afaf kalena dhaaf qofka cariishka ama buulka dhex seexda ayaa yaqaana halka darooraysa dhagaxu waxa uu ka jabiyaa masaarta hadalkuna qalbiga ninkii seexda ayuu siciis dibi dhalaa qofka hadla waa fikira balse ka aamusan ayaa ka fikir badan si feejigan u dhageyso aad baratide haddii aad maskaxdaada adeegsanayn waa inaad awooddaada inaad adeegsataa meel dheer oo laga aqoon iyo safar aad aragtide fula hooyadii ma gablato dagaalku indhama leh gantaalku ku soo noqon doona lama rido doqonka uunbaa rumaysta wax kasta oo loo sheego si aad tuug u soo qabato tuug kale raadi farxadda cid kasta waa kula wadaagaysaa laakiin murugta waa adiga iyo qoyskaaga uun dagaal bilaabidiisu fudud dhammayntiisuna si adag haddii aad caafimaad qabto shaqo raadi shinnidu aroorta horey shaqaysataa cudur waliba dawo ayuu leeyahay duqnimo mooyaane faham badni iyo ixtiraam ayuu macallinka kugu jeclaadaa madaxdu waxay xukumaan shacabka iyaguna waa inuu xukumo caqligu ama cilmigu dikriga eebe waxa uu daaweeyaa qalbiga salaanta ayaa ka horeysa su'aasha qofkii idin su'aalo salaan ka hor ha u jawaabina martigelintu waa 3 maalin oo keliya ha cadhoon jannadaad geliye hamigaaga adkayso horumarka iyo hiigsigu ma kala maarmaan dadka bilaaba sabab hala ula hadlin dadka bilaa sabab ha ula hadlin hubka qofka muuminka ahi waa sabarka iyo ducada weligaa cilmiga dulqaad uun ku dadaal intii aad qof kula saaxiibo lahayd saaxiibkii qabiilkiisa ha ka badnaato intii aad kula saaxiibi lahayd diintiisa wax ka bara suugaanta afkaaga ugu yaraan bara luuqad kale xasadka dadka waa kala googooya xasadku dadka waa kala googooya asluubta qofka ayaa wanaagsan daafkiisa luuqaddu waa furaha cilmiga haddii aad rajo jirin qalbigu waa jabaa waasigu waxa uu xadaa waqtiga carruurta kuwa waalidkood u baariga ahi waa tuug ducada xadaya ma aqaano waa cilmiga barhkii qofka aan qaldin ma saxo cilmigu waa bad aan xeeb lahayn dhimashada qof caalim ahi waa geerida caalamka haddii aad ugaadhsada caawiso hilibka ayuu wax kaa siinayaa akhrisku waa dabaasha caqliga xigmadduna waa shaqadeeda intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeennii maanta oo aynu ku soo qaadanay 60 xigmadood oo malab ah isla markaasina ay mudan tahay inuu weelayo qofkii caqli lehe intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa haddii aad nagu cusub tahay like saar muuqaalka siina sheer garee sidoo kalena rukumo kanaalkeenna sidaas iyo nabadiino waa inoo iyo muuqaalka xiga insha Allah